muusiga arkaysa iyo qofka ciyaarka iyo jirandeerta la isla helay waxa loo dhiganayaa oo loo dabaaldegaya waxa suuq iyo dhibaatadii shacabkii la qaxiyay iyo laascaano dhibaatadii ka dhacday ma xawayaanba bal waxaan is oran karaa xawayaanka caqli dhaamo xawayaanku waxyaabaha qaar ka xishooda oo ilaahay xawayaan u garashada siiyay baa jira السلام عليكم على ملك السدنية كجوكتان الله وحنا كل جينا عافمة دي عبادة سبني عمل خير منك سمر الله وحنا ودينا المرات كسمت خير وقدر وحنا صنع عافمة تام سيوكين جريودي جنة تقول هو جري كل جريودي سمر الله كسي كورة شاستا رمضان شهر بركة يكون رسول الله بدر بركة سنة سيلا مرات الكلمة نبضة يبدو الشدة الصوماليات أنت من النبضة هي معناها عالم الصوماليات فهسن ومدنا الله ودي سري سيدا نقصنا هاي بريء كان مظاهرات iyo qaralaas iyo waxyaabo aan aqliga bini'aadanka ay qaadan karin ayaa waxa ku dhawaaqay dadka aragtidooda hooseysa oo cunfiga uu ka buuxo aaminsan aragtida gool istaaga ama goosashada iyo xasuuqa iyo dulmiga hadaba waxyaabihii ugu yaabka badnaa qof kasta oo aqli leh ama ma garanaysaa iimaan muslim ama garashadan uu la yaabay waxa kamid ah ma garanaysaa banaan baxyo xaflado meel muusika dhacayo wayladaan la isugu imaanayo hargeysa way ka dhacday gibiley way ka dhacday dadkaas waxa ay ku faanayaan oo ay farxad u arkaan waxa suuq iyo tacaddi la geystay sidaan ogsoonahay suuradda halka idinka muuqata ee waayeel iyo waxgarad iyo culimo iyo dumar iyo dhalinyaraba ay ka wada muuqato oo dadkii ku geeriyooday oo ku waxyeeloobay xasuuqii laga geystay laascaano haddaba lagu farxsan yahay ka war intaas waa inta loo dabaaldegayo bal aan aragna haddaba iyagoo sacabtumaya oo aragtida cunfiga ah ee liidata ugu sacabtumaya xasuuqa adeerkood muuse juuday geystay iyo dabaaldeg ay dhiganayaan iyo dhiigga islaameed sida ugu farxsan yihiin taas waa gibiley waa xaafadii muuse jiidaan waxa la isugu soo sacabbaxay buuqa loo sameeyay iyo aralaaska iyo qayladanta wax kale ma waa dhibaatadii iyo tacaddigii laga geystay laascaanowiya waa dilkii iyo dhiigii shacabkii la daadiyay waa isbitaaladii iyo masaajidadii la dumiyay weeyaa alaysa minkum rajulun rashid macnaha de aqligii iyo garaadkii dadka kan islaamnimada loogu tilmaami lahaa mee hadiiba dhiig islaam lagu farxayo lagu sacabtumaayo baabuurta korkeeda lagu taagay kuma ka gibilayo kaliya ترى waa hargeysa oo iyadana la soo baxay dada kan idin muuqdo horta ay nin xalaal ku dhashaa xildhiba qof markuu ibn al-halal yahay xalaalnimadu ma kaliya inaad cunto ma garanaysaa cunno xalaal xalaalnimadu waa in lagu koriyay xalaalnimadu waa inaad ma garanaysaa fahansan tahay oo ma garanaysaa og tahay wax xaaraanta iyo xalaasha kala waa inaad ma garanaysaa damiirku damqaad leedahay waa inaad dulmiga macnihiisa wax dhibaato kaaga iman kara doctor ilaahay ba iska mamnuucay iska xaaraantimeeyo dulmiga hadaba dadka aad arkaysaan ee dharka oon xiran aan aqliyada ku tilmaami karin iyo garashada waxa aqli dhaama laba shakhsi oo tilmaam wali lagu sheego hase ahaatee anigu aan qabo inay miir qabaan mid waa kan mudane Muuse Biixi wuxuu ku yahay sidii shaqadii ay nagu ahayd oo kale ayuu la saaroti ma garatay haye iyaguna shahiid bay taagay xabadooda qulay hidaashan iyo toban inaga bay iska baxay baba boodulu la dhacay markaba madax bakada buraashada dhigay marka inaga teena ilaa uu biyo ka dhigaya hawada raacaysa bug waatii saaqday dadii oo kale u banjideena inagu tilmaamaya sheegaya waliba wuxuu la hayb iyo beeliya muuse juudaan dadka ilaahay aqliga u kala lasha way jiraan dad badan oo cunfiga iyo aragtida liidata ma garanaysaa ka soo horjeeda hase ahaatee badi waa kuma aaminsan aragtida muuse shaani iyo muuse juudaan iyo ninka dhig miiratada ah ee dulmigu inuu xaaraan yahay aqligiisu aan siinayna daadii 8aad iyo xilligii waayeelku ay tusbax qaadan lahayn ku jira wuxuu gartay war muuse waxa shalay ka cabanaysay ee cuqdada aad ka qaaday allahayd waa ciil lay geystay ee gardarada aad ku tilmaamaysay ee allahayd duurkaan u galay maanta inaad ka dhigto wax caadi ah aqligu qaadan maayo aqligu qaadan maayo qof bini aadan ka dhageysan maayo masharaad waan leey oo maanta aad miir qabtaa
mise shalay baad miyir qabtay oo maanta aad waarantay bal haddaba isagana nin kaleeto oo ma garanaysa waxaan qabaano inay kaba caafimaad badan yihiin muuse oo fikir hadlaya oo isaguna ilaahay ha wada caafiyo ka iyo kii ka horeeyay ee yar daawan waxaan ugu cararay cadaalad darida ka socota anigoo guriga hooyada iyo buurta jiifi xaggeeda baa iska jiifa ayaa la qabta waa la xiray min halba la geeyay baa laga lugiyo wali baa laga helay xagee duka lagu arkay qof dhiig laga qaado wali laga helo yaha macquul ma fahmaysan 10 jeer baa la igu xiray fi adab daro iyo kibir ma fahmaysan laakiin maanta waa soo laabtay waxaan u soo laabtay xiniyii ragii ilmaad mina kale wuxuu caafimaad bahelay calanka buluuga markuu laasaan ku arkay calanka babanaya ee buluuga iyo daraawiish soo noqotay kolkuu arkay ayaa maskaxdiisa iyo miirkiisa soo noqdeen waana hadiyay ilaahay caafiyo hada waxa weeye muuse qayla dhaan buu waray oo halkan isku qaaday Mustafa Cagjar buu isku qaaday oo halkan isku qaaday wuxuu isku qaaday Puntland waxa dhiban China iyo Ruushka isku qaado muuse hadii garashadaada iyo aqal xumadaadu ay ku siisay inaad maanta iyo masaakiin iyo intii masaajid ku jirtay aad xasuuqdo adigoo cunfi iyo qabyaalada ay ka buuxdo calanka Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeedna ay ku dhibayaan cid kugu daawan mayso saddex nin oo waalan baa kugu haray saddexdaasna maalinba mid baa ka dusay hadaan adigu dilin bal daawo xawayaankan aan isleeyahay uu ka aqli badan yahay tusaale aan kugu soo qaato uu xawayaankaas fahmay oo adigu fahmi weydee xawayaankaasu waa diin waana diin badeed mid kamid ah ayaa waxa weeye isrogayo magaranaysaa xaalad caawinaad u baahan diimankii waa isugu yimaadeen waa kuwa caawinayo garab siinaya si uu u noqdo mid magaranaysaa badbaada ama naxas aan ku dhigin ama dabaasho markaas waxa weeye jawi caadi u gala diinkaas wuxuu garan waayay miyaad waxaad rabtaa marka in ay garan waayeen beeraha dhulbahanta la dhashay kaliya ma aha la dhashay xataa kuwa la qadiyada kayma hartiga kaleeto oo la dhashay oo la dhiiga ama daaroodka kaleeto aad isku qaadayso aad leedahay waa ogaadeen oo wuxuu degan yahay halkaas maxaa halkan keenay ma waxay ka aqli leeyitaan diinka aqliyada cunfiga ku saleysan ee kugu jirta ma waxay aaminsan tahay in dadka waxa weeye dareenka ka qaadayso ama dadnimada ka qaadayso ama damiirka ka qaadayso dadku diinka kama aqli leeyitaan nabi Muuse alayhi salaam ayaa uu arkay inay isku ehel yihiin oo lagu gardaroonay waa kan ninkii feerka kaga dhaceeyay suuxii hay marka adu aqal xumadaada iyo garashadaada kolka Mustafa isku qaadayso oo Puntland isku qaadayso oo leedahay ma waxa rabtay inaad shacabkooda iyo dadkooda aad ku gardaroonayso ilaa adigu wax ku ceeshtay iyo wax ku celiyo oo wax ku sheegay ma lihid hadii aad leedahayna maqli mayse mana kugu daawadaan baa rabtay waa loo soo gurmanaya lacag baa la siinaya xabad baa la siinaya gurma dagaal baa la siinaya dadku waa qabaa'il kuwa kan qabasho xataa waxay leeyihiin kuwa qabta oo runta u sheega oo canaanta adiga kii ku qabta xataa walibaad aqbalaysaa inaad xirto marka gardarada iyo dulmiga aad u bareertay daawadeeda waa in la iska kaadhiciyo waliba lagu bahdilo waad helaysaa waxa weeye jamaahiirtu muuse Soomaali ixtiraamay aqal Soomaaliyeed iyo garasho malaha ogaadeen in magaranaysaa baryaha kan uusan magaranaysaa halgankii uusan baaqan wax kasta oo isku dayay tabartiisa iyo taagtiisii Muuse ay tahay mid aad u janacsan ciidankii ay kala jabeen tafaraaruqna uu ku dhacay oo orday dhanka iyo Ethiopia hadii uu orday abiyan uu yiraabiye wadada kan waxaad ku haysataa waa qasab cidina ka yeelmayso ka aqbal masay ciidankaaga la bax inta aragtidaada iyo beelahaada u degtana isugu aruuro tag marka jamaahirta waxaan leeyahay niyadda iyo fikirkiina ha ahaado mid khayraysan meel kasta oo dunida ka joognaba xaaladdan iyo xogteena waa ognahay khaataba state of Somalia calanka buluuga sidoo uga babanayo oo uga muuqdo mid ilaa abad uga babanayo weey barnaamijka tan inta dib ugu kulmana gacalo warsani war khayr salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh